Cabdi waa nin dhalinyaro ah, wuxuu ku jiraa gugii 18aad, hadda ayuuna u tallaabsanayaa xagga 19. Wuxuu mas'uul ka yahay adhi dhowr tiro gaadhaya, kaas oo reerkoodu leeyahay. Baadiye aan ka fogeyn tuulada tulkii deegaanka u ah ayuu ku hayaa oo ardaa baasle ama doob ku yahay. Hooyadii way dhimatay oo waa rajay. Waa nin isa saaray xil culus oo ah inuu daryeelo xoolahooda oo aanay ka dayacmin. Aabbihii waa nool yahay oo magaalada ayaa reer kale u degan yahay. Kalsoonida uu ku qabo wiilkiisa ayaa u fududaysay in aanu ka welwelin haynta uu uga tegay. Wuxuu la dhashay carruur badan oo dhowr bah kala ah, kuwaas oo rag iyo dumarba leh. Waa nin naftiisa ku kalsoon, aamin ah oo aan loofar lagu xaman. Waxaannu isbaranay 2017 waqti aan ku qiyaasayo, kolkaasoo aanu jaar noqonnay. Dooxada ayaannu isugu iman jirnay, maalinta badankeeduna waxay nagu dhaafi jirtay sheeko, shax, qori-tuur, shabadaan, deleb iyo guud ahaan ciyaaraha kala duwan ee Soomaalidu hiddiyo dhaqanka u leedahay. Markay cadceeddu sii libdhaysana inta aanu sii macasalaamayno ayaannu u dhaqaaqi jirnay ururinta iyo gurigeynta xoolaha nala joognay. Muddo badan ayaannu sidaa wada soconnay, weligeyna isma aanu qaban. Dhowr sano kadib, anigu magaaladan soo galay, waxbarashadaan ka bilaabay. Cabdina miyiga ayaan kaga imi, hase yeeshee taasi nagama hor istaagin in aanu is-xidhiidhino. Bale annagoo isu soo xiisnay ayaannu ku kulmi jirnay ceelka isagoo adhi ama dhaan wada, makhaayadaha magaalada isagoo ka shaahaya ama alaab ka gadanaya, iyo goobaha kale ee bulshadu ku kulanto. Si kastaba ha ahaatee, Cabdi ugu dambeyn magaalada meel aan ka fogeyn ayuu adhigii xero uga dhigay. Aniguna kolkay hiimsi ama gabaldhac tahay ayaan ka caraabi jiray magaalada oo u tegi jiray si aan ula soo sheekaysto, ileen waa wadaygaan adduunkanba ku leeyahay. Markaannu soo kala xog bogaannana, cawaysiinkii gooray tahay ayaan kasoo dheelman jiray oo xagga magaalada isu kici jiray. Saaxiibkay waxaan ku ammaani karaa dhaqankiisa hufan iyo kartidiisa. Waa nin dabeecad wanaagsan oo saaxiibtinimada tixgeliya. Habeen habeenada ka mid ah, kolkaan adhigii la xareeyay, tiradiisana la hubiyey, oodana saarnay, ayaannu dabkii shidnay oo keli shaaha u tuuray. Kadibna ardayga cawtaale ku fadhiisannay. Intii shaahu noo kareeyay ayaannu isla soo qaadnay arrimo ku saabsan dumarka iyo jacaylka. Wuxuu dhowr jeer igu soo celceliyey magaca Canab iyo sifaynta gabadha leh oo uu aad uga fogaaday. Intaan ku soo dhowaaday ayaan ku idhi, saaxiib, in lagu helay waan arkay, bal war iga sii gabadhan aad maalin oo dhan ka sheekaynaysid, habeenkiina ku qarwaysid. In cabbaar ah oo uu aamusnaa kadib, inta uu i soo eegay ayuu yidhi, saaxiib, magaceedu waa Canab. Waa gabadh aannu muddo isnaqaanno, inkastoo aannu marxalado badan isla soo marnayna, hadda guul baannu ku dhownahay. Insha Allah maalin dhowna inaannu isguursanno ayaan ku tashanay. Aad ayaan ugu farxay warbixintiisa, anigoo la kaftamayana waxaan ku idhi, niyow saaxiib, waa abshir. Hadda ayaadba ka raysanaysaa dhaxantii iyo gabadhanadii habeennimo. Hawshaa gal, anna garabkaaga ayaan taaganahay. Intuu qoslay ayuu igu yidhi, saaxiib, waad mahadsan tahay. Aniga waxba dhulkayga ma yaallaan, ee gabadha ayaa hawlo ku yara furan yihiin oo diyaargarow ku jirta. Dabadeedna u kacay xaggii dabka, isagoo dhegta soo qabanaya keligii shaaha ahaa oo inuu gubto u dhow. Mar aanu dhowr koob ka laacnay ayaan ku idhi, saaxiib, waan kaa sii soconayaa, dee nabaaddiino. Hadda laga bilaabana inaad carus tahay laabta geli. Waa yahay saaxiib, insha Allah wax walba khayr ayay ku dhammaanayaan, ayuu igu soo xidhay hadalkii. Dhowr habeen oo kale ayaan ku soo noqday, kana showrnay arrinta Canab. Anigu waxaan ku tashaday inaan saaxiibkay garab siiyo hadba intaan awoodo, anigoo mar kastana xasuusinaya in ay lama huraan tahay inuu i baro gabadha dumaashada igu beegan, si aan talo ku saabsan ruuxdeeda u siiyo. Isaguna yaan lagu waayin ayay jawaabtiisu ahayd. Soo isbixiyey jacaylkii Cabdi. Galab galbaha ka mid a, mararkii salaada casar laga salaam naqsaday, ayaa moolkayga soo dhacay. Waan qabtay, kolkaasaan idhi, waayo. Waa saaxiibkay Cabdi. Guriga igu kaalay ayuu hadal iga bilaabay, isagoon is salaamin. Cabdi oo maalintaa magaalada joogay ayaan u dhaqaaqay xagga gurigiisa oo aan naga fogeyn, anigoo ka fekeraya waxa saaxiibkay ku dhacay. Qolkii uu ku jiray oo albaabkiisu xidhnaa ayaan dalaq idhi, intaan iska furay, anigoo aan iska hubin cidda ku jirta. Indhaha ayaan ka socdaa oo lugaha waan nasiiyey. Waxaa ishaydu qabatay Cabdi oo dhallinyaro ka muuqdo.
garhka iyo jilbaha intii uu isgeliyey ayuu isku dayayaa inuu iska difaaco mawjadda kusoo furowrantay maankiisa. mar naftiisuu hiifayaa, marna inantii uu jeclaa ayuu eedda oo dhan oogada ka saarayaa. mar xasuusta gacaladiisa ayuu isku maaweelinayaa, haddana markuu xasuusto in lagala wareegay oo ay nin kale galabta afa u tahay ayuu isku ciilkaambinayaa barashadeedii. kolkaasuu haddana naftiisa ku qancinaya in calafka iyo qoraalka ee bisidan waxyeelayaan iyo aanu isagu dadaal yaraysan. marka qalbigu taa ka diidana wuxuu ku sasabayaa kuna dhayayaa heestii gelbis ee uu ku luqan jiray hawlkii weynaa Rabbi ha u naxariistay Maxamed Mooga Liibaan. aniguna kumaan gabin adna iima goynine waayahayna gaabshee. haddii guri aad leedahay oo lagula aqal galay, geel iyo gammaan faras ayaan kugu gelbinayaa. warwar iyo howlo adduun ayaa soo afsaaray, xaalkiisuna wuxuu marayaa halkii heesaagu ka yidhi: sidii fuuriga baddoo dabayluhu halis gasheen, hawadu waa iga xuntoo cidlaan heehaabaya. horaan u soo socday anigoo dawankii dhaladu igu yeedhay, sidii qof wax walba ogna u tallaabsanaya. nabdaalin kadib waxaan weydiiyey waxa soo kordhay. intuu go'is doonyeystay ayuu sheeko dheer ii galay, taasoo aan murug mooye wax farxada igaga tegin. cabdi in muddaaba wuxuu ku taamayey inuu musaafaysto gabadhii u jeclaaday. taasina ma aha mid uu iga qariyey ee waan la ogaa, waxayse ballantu ahayd gabadha markuu i tuso inuu arrintaa ku dhaqaaqo. ha yeeshee saaxiibkay waa degdegay. maankiisana wuxuu ka saaray maamahdii ahayd hubsiimo hal ayaa la siistaa, taasoo weligiiba kusoo dhaqmayay markanse ka hoos baxday. aniga ka sokow cabdi asxaabtiisa kuwa ugu dhow waxaa ka mid ahaa nin la odhan jiray Faarax. Faarax waa nin nala da ah oo sida cabdi hadda hawa guul gashay. isagu cabdi waa iga dhow yahay oo xogtoo dhan waa la socdaa, sababtoo ah sidayda habeenkii ma soo dheelmadee waa niman ood wadaag ah. wax in badan dhegihiisa kusoo noqnoqday magaca Canab, kaasoo cabdi ku dawaqiyey sidayda oo kale. balse Faarax aniga wuu iga duwanaa oo damac baa galay. wuxuu la yaabay gabadhan uu ninkani ka sheekaynayo. markuu tilmaamaheedii la dhacayna wuxuuba niyadda gashtay in ninkan yahay awliyo loo soo diray, taasoo soo heshay qoftii uu raadinayay 5 sano ee dambeysay. kolkaasuu qalbiga ka farxay, isagoo saaxiibkiina ka qarinaya waxa uurkiisa ku jira. wuxuu uga afmacaanay hambaliyo walaalkay, qoftayay ku dhaafin sida ugu dhaqsiyaha badan iyo bartamaashiday. cabdi tuhumba ma gelin, wuxuuna ugu jawaabay: waa diyaar saaxiib, haddaan iskiin barayaay moolkaaga idhib, kayga lacag kuma jirtee. waa isbaray. sheeko dheer kadibna Faarax wuxuu u guurayay gurigiisii. maalmo kadib cabdi iyo Canab oo guriga gabadha reerkooda ku dhow sheeko ugu baxayso oo dhiishii jacaylka wada dhamaya ayaa qof kaga nixiyey assalaamu calaykum. markay xaggii codko ka soo yaray eegeenna waa Faarax oo labisan oo aad moodo inuu wax maagan yahay. ari baadiya ma aragteen ayuu yidhi. salaantii kadib cabdi oo u qaatay inuu saaxiibkii qof kale u malaynayo ayaa gabadhii ku yidhi: Canab, waa gabadhan habeenkii duweyd taleefanka iska kimbarayay. Faarax, gabadhani waa tan, iska baro. Faarax waa nin alle hibo u siiyey inuu si fiican u jiro majaajilada. markiiba intuu gabadhii gacan kula haaday ayuu u daba dhigay: duwaashi, barasho wanaagsan. halkan kaama filayn run ahaantii. kaftan iyo iswaraysi kadib waa la kala tegey oo qof walba muraadkiisii ayuu koobay. Faarax isagu hawl kale maanta inuu qabto ma rabo. gabadhii waa maanteeda ka yaabi jiray ayuu maanta indhihiisa ku soo arkay, waxaana aad soo jiitay biriicda eebba ku manaystay foolkeeda iyo sida xubnaheeda loo dheeli tiray. saacad kadib ayuu jaanta soo dhigay gurigiisii. tilaagad shaaha, bakeeri iyo qatiifad intuu hore u qaatay ayuu geed quraca oo aqalka ka dambeeyey gogladay. dabadeedna gacanta geliyey jeebka, kalena soo baxay moolkiisii. wuxuu baaray lamarkii gabadha, kaasoo uu horey u hayay. muddo 30 ilbiriqsi ah oo uu raadinayay kadib wuu helay. kadibna waa wacay. markay qabatayna wuxuu ula kala baxay weerihiisii faanka, beenta, xanta iyo munaafiqnimada darra ee weligeeba hablaha ku nisraadin jiray. doodeer kadib Canab ayuu ka codsaday inay iska ilowdo cabdi oo isaga xaggiisa soo marto. inkastoo aanu saaxiibkii waxba ula hadhin, aflagaado iyo cayno isugu daray, kuna tilmaamay nimay gudnimo dilootay, Canab uguma soo loodsamin. wixii uu maanta dhan shubayeyna waxay noqdeen hal bacaad lagu lisay. dhowr goor oo kale ayuu soo wacay, marar badanna waa la kulmay. ha yeeshee wax war uu ku farxo afka Canab alla kama soo saarin. jawaab kasta oo uu xaggeeda ka maqnaa waxay ahayd mid ku gubaabinaysa inuu samro iskana ilaawo go'aankiisii hore. cabdi
wuxuu fikiraba dad badan oo anigu aan ku jirin ayaa kula taliyey in laga fiican yahay subax walba gelgelin ilaa inuu kasoo tooso isagoo awooda guri raaxo badan inuu kasoo tooso sidoo kale habeenkiina bannaan dhaxan iyo bahal hoose aan laga nabadgelin inuu raalli ku ahaado isagoo kala aqal loo kashkaashay darmana lagu fidiyey inuu kula gamo genyo uu soo gaatay gabdhana kala soo baxay waanadii iyo dardaarankii isdaba joogga ahaa ayaa cabdi hilow iyo xiise aan hore ugu jirin ku abuuray wax walba waxaa uga daran riyada leylkii iyo tallanka dharaar kasta haysta waa nin maanta oo idil aan fadhiisan markuu gogoshiisa tago inuu suuxay iyo inuu seexday kala garamaysid ha yeeshee haddaad is tidhaahdo kala hubso 2 tallaabo adigoon xaggiisa u qaadin ayaa waxaa kaa hor imanaya yarka oo finiinaya waad moodo intii lug iyo gacan laga jibiyey in dabaq dheer laga soo tuuray markuu indhahaas geliyaba khayr qaftadii baryahan hurdada u diiday ayaa hor iman kolkuu is yidhaa gacan togaaleyna tillaagadii agtiisa taalay ayuu feer ku kiciyaa markaasaa mafilaanka iyo sanqadhu awood u siiyaan inuu masaafo 2 mitira sidii goolhaye isu tuuro inaad ragtala kama dhammaatee galab galbaha ka mid ah ayaa waxaa si kamaa u kulmay cabdi iyo wiil asxaabtiisa kale ka mid ah kaasoo magaciisu ahaa xuseen farta iyo halka bugtaa isoge isagoon saaxiibkii ka xog bagan ayuu la kala baxay buuggii qisada canab ku qorayd goortuu ku fogaaday kadib ka sheekaynta gabadha ayuu xuseen ka dhex galay isagoo la yaaban sheekada aan joogsiga iyo hakadka toona lahayn wuxuuna dhagaha ugu shubay cabdiyow ma moogay canab inay qalbigaaga qol ka dhisatay hase yeeshee gabadh aanad qabin adoo sidaa isugu dhibay haddii berri ka maalin nin kale alkunto maxaad ku falcelin faan looma baahna ee aan ficil ka arko gabadhana sida ugu dhaqsiyaha badan hawsheeda u gal soomaalida ayaa ku mahmaahda quudan jirin qoryo looma gurtee yaa aad sida ka yeeshana sheeko canab ku saabsan inaan kaa dhegeysto uu habeenkii xalay ahaa tegey cabdi wuxuu yidhi waa hagaage maxaad ku talin saaxiib xuseen ayaa yidhi haddaad talo iga martiday waxaan ku leeyahay caawa suurtagal maaha ee waa inaad habeen dambe gabadha la tagto leylka xigana ay ooridaad ahaato anigu garabkaaga ayaan ahay inantana waan kula kaxayn hana moodin inaan degdegaye ee waa tii horey loo yidhi geeso laad kuleylka ayaa lagu gooyaa weerihii canaanta iyo talada isugu jiray ee xuseen dhiga awdan kuma dhicin cabdina markii uu ariga wada saaray ayuu horey ka wacay canab kuna qanciyey inay habeen dambe israacaan oo ay diyaar garowdo iyaduna haye iyo hawraarsan ayay warcelisay habeenkaasina sidaa ayuu ku tegey waxaa intaa inoo ku dhan qaybtii koowaad ee sheekada la soco qaybta labaad insha allah wabilaahi towfiiq